odayaal sidaan wararkaygii horeba idinku soo gudbinay dawladda Israa'iil ayaa waxay noqotay dawladii ugu horeysay ee aqoonsatay Jamhuuriyadda Somaliland iyadoo u aqoonsatay dal madax bannaan iyadoo galabta ay ku dhawaaqday ama ra'iisul wasaaraha waddankaasi Benjamin Netanyahu uu ku dhawaaqay in uu Jamhuuriyadda Somaliland si rasmi ah u aqoonsaday waxyaabaha iska kaashanaya waxa kamid ah dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo waliba dhinaca istiraatiijiyadaha iyadoo ra'iisul wasaaraha waddankaasina uu madaxweynaha Somaliland casuumad rasmi ah ugu fidiyay waddankaasi Israa'iil in uu booqasho ku tago haddaba madaxweynaha Somaliland ayaa caawa kulan isugu yeedhay dhammaan golaha wasiirada xildhibaanada baarlamaanka xisbiyada mucaaradka ee Somaliland iyo xisbiga muxaafidkaaba sidoo kale waxa uu yeedhay inta badan haldoorka Somaliland oo ay ku jiraan madaxweynayaashii hore ee Somaliland Daahir Riyaale Kaahin iyo Muuse Biixi Cabdi sidoo kale aqalka madaxtooyada Somaliland waxa looga yeelay dhammaan inta badan ay dhaahdeen saxaafadda Somaliland iyagoo goobjoog ka noqon doona hadal uu halkaasi ka jeedin doono madaxweynaha Somaliland arinta aqoonsiga Somaliland oo shacabka Somaliland ay naawilayeen muddo 34 sano ayaa ah arrin taariikhi ah iyadoo inta badan shacabka Somaliland ay soo dhaweynayaan arintaasi banaanbaxyo waaweyn ayaa waxay ka soconayaan qaar ka mid ah magaalooyinka Somaliland kuwaas oo loogu dabaaldegayo aqoonsiga Somaliland ee dawladda Israa'iil iyadoo lagu soo waramayo in dawlado kale ay ka mid yihiin Mareykanka, Imaaraadka Carabta iyo wadamo kale oo Afrikaan ah ay ku dhawaaqi doonaan dhawaan in ay ictiraafeen Jamhuuriyadda Somaliland dhinaca kale dawladda Soomaaliya ayaa iyaduna kulan degdeg ah isugu yeedhay golaheeda wasiirada iyagoo caawa ka arinsanaya ictiraafka Somaliland balse warar xogogaal ah ayaa waxay sheegayaan in dawladda Soomaaliya ay horeba u ogeed inay Somaliland la ictiraafayo balse ay ku guuldareysatay dagaal dhinaca diblomaasiyadda oo ay qaaday bilihii la soo dhaafay iyo waliba toddobaadadii la soo dhaafay si arrintan isu hortaagto daawadayaal kulankaasi madaxtooyada iyo khudbadda madaxweynaha Somaliland uu jeedin doono goordhow ayaanu idin la socodsiin doonaa